Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal soo dhawaada meel walba ayaad joogtaanba. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye magnesium deficiency iyo magnesiumka oo jirkeena ku yar ama ka maqanba. Marka sidaad ku ogaan kartaa inuu magnesiumka kugu yar yahay. Dhakhtarkaaga u tagaysaa waadna isu soo baadhaysaa, wax dhibaato ma laha. Dhiig baa la iska qaadaa mararka qaarkood. waxaaba lala eegtaa marka aad dhakhtarka tagtid ee balanta leedahay baa la weydiiyaa dhakhtarkaaga anigu faytaminada jirkaygaan rabaa inaan wax ka ogaado. Marka waxyaalaha aadka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah magnesiumka, vitamin D-ga, vitamin D3-ga, calcium iyo inaad iska jeegaraysid anemia inay ku hayso dhiig la-aan. Kuwaasoo dhan maadaama ay jirkeena muhiim u yihiin iyo nolosheena hadday ka maqan tahay in wax iska kaa dhimaya caafimaadkaagu uu iska kaa dhimaya way fiican tahay inaad la socotid. Marka magnesiumku muxuu jirka taraa baan weeye su-aasha. Jirka muxuu taraa, muxuuse faa'iido uu u leeyahay jirka iyo caafimaadkeena. Marka magnesiumka walaalayaal badanaaba hadduu magnesiumka kugu yaryahay waxaa kuu imaan kara madax xanuun. Waxaa kaloo aad dareemaysaa qofka inuu wadnihiisu uu aad iyo aad u garaaco oo wadna garaac. Marka iyo murqaha oo ku adkaada, murqaha oo meesha kubkoo kale ku adkaada oo ku soo roora. Marka taasna way keentaa xaaladahaas magnesium deficiency oo magnesiumku kugu yaryahay. wadnahana wadnahaaguna aad buu u garaac saa'id oo kale u dejiyaa. Maskaxdana aad buu ugu fiican yahay inay maskaxdu shaqayso oo si fiican u shaqayso. Hadduu kaa maqan yahay adiga dhan maskaxdaadu sida faytaminada kale markay kaa maqan yihiin oo kale. Marka maskaxda xataa in laga fakaro weeye, waayo qofka hadduu xitaa dhiig la-aanta sidaad ogtihiin oo kale xasuusta dhan bay kaa qaadaysaa. Marka saasoo kale magnesiumkuna maskaxda ugu fiican yahay. waxaa kaloo uu u fiican yahay haddii difaacaagu hoos u dhaco kale isagana hadduu kaa maqan yahay difaacagana hoos buu u dhacayaa. Marka waa vitamin ka mid ah vitaminada aadka u muhiimsan. Marka saa ula socda walaalayaal. runtii qofku magnesiumku hadduu ka maqan yahay waxa weeye hawlahaas dhan aan idin soo sheegay ayaa ku badanaya oo saa'id ku noqonaya. Marka way jiraan dawooyin haddaadan jeclayn dadka dawooyinka qaata aadan ahayn, inkastoo dawooyinku ayba fiican yihiin xagga magnesiumka iyo vitamin D-ga iyo alaabtaas dhan ay aad iyo aad kuugu fiican tahay. waxaa jira oo kale cuntooyinkan cunanana waa laga helaa iyagana. vitaminkan waa laga helaa. Marka inaad raadisid waaye oo qofku uu uu raadiyo xataa kuwa khudaar ka samaysan. Marka anigu laakiin hadda kan qaato waxa weeye mid la yiraahdo Doctor's Best oo caagad ku jira, kaas ayaan qaataa. Marka maasha Allah aad buu ii caawiyey una fiican yahay. Marka insha Allah kuwaasoo kale ku dadaala. farmasigana laga helaa. Farmasiga ayaad ka helaysaa marka laakiin isa soo jeegare marka hore. because waxaa laga yaabaa inta farmasigiis ka tagtid inaad u baahnayn baba. Marka dhakhtarkaaga sidaad vitaminadaada kale ula socotid oo dhan dhakhtarkaaga weydiiyey waxba kuguma qaadanayso. insha Allah aad bay aad u fiican tahay inaad wax walba la socotid. Marka walaalayaal halkan kuma soo koobi karo runtii magnesiumka iyo wuxuu u fiican yahay kuma soo koobi karo runtii halkan. waxa kaloo ayadana keena magnesiumka kugu yar waxaa ka mid ah lafaha oo ku garaaca lowga low xanuun iyo gacmo xanuun xagga rheumatismka ka imaanaya ama osteoarthritis had noqoto ama rheumatoid arthritis ha noqoto. ayagana aad buu kaaga caawiyaa, uu kaaga caawinayaa oo xanuunka kaaga yareynaya. Hadduu kaa maqan yahay lugahaba gow
ku xanuunaya iyo gacmaha sidoo kale meel maaragtay saas wax fag uga leeyihiin yacni xanuun baad dareemaysa hadday waxaasi dhan kaa maqan yihiin marka haddaad rheumatism qabtid iska taxadar faytaminadaada inay mar walba iyagana ay ku maaragtay ay ku dhammaystiran yihiin insha allah biidnillaah marka maanta intaas ayaan kusoo koobayaa walaalayaal insha allah waxaan rajeynayaa inay idin anfaci doonto haddaad nagu cusub tahay soo dhawow walaal ama walaalo yacni walaalahayga qiimaha badan ee igu xiran iyo intii cusubba haddii aad nagu cusub tahay subscribe insha allah iyo maaragtay thumbs up iyo maaragtay kambaleelka si aad ula socotid fiidiyoyadeena kale haddaad horey noola joogtidna aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sidaad noogu xiran tahay mar walbaad noo garab istaagantihiin la-aantiin maaragtay informationkan maaragtay maasha allah waxa weeye aad baan idinka mahad celinayaa marka walaalayaal lana sii sheergareeya dadka kale waayo waxaa dhici karta adiga haddaad informationkan haddaad adiga magnesiumkaagu u saxan yahay dad kale oo walaalo abaa jira aan maaragtay informationkan helin yacni ogeyn si ay iyaguna isaga taxadaraan oo isu soo sheergareeyaan oo maaragtay uga faa'iidaystaan marka maaragtay yacni innaga waxa weeye adiga communitygeena inaan u dadaalno aad iyo aad bay u muhiim tahay adiga haddaad usii gudbisid qof kale oo maaragtay ama kugu xiran ama ehelkaaga ah ama aad ogtahay in lafa xanuunaya ama caafimaadkiisa kale uu baahan yahay magnesiumka lafa xanuunka kaliya ma aha magnesiumku waa caafimaadka guud oo dhan marka insha allah biidnillaah aad iyo aad baad idinka mahad celinaya mar labaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu